war degdega daawadayaal madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo weerar cir iyo dhula ku qaaday xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka kana hadlay arrimo badan oo xasaasi ah galka Puntland arinta Somaliland mucaaradka Muqdisho iyo guulaha dawladdiisu ay ku talaabsatay ayaanu idinkula wadaagi doonaa barnaamijkeena sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo u jawaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni haddaba muxuu Xamza Barre yiri waxaan leeyahay wiilkaas anaga matala dawladdu halka keenayna maanta annaka madax ka waajib waxa lagu ah xuquuqdiisa siyaasiyiin ama diid ama yeel kun baad ka hadli labaad ka hadli 10 kun 20 kun 30 kun baan qornaa waana siinaa xuquuqdooda isdilaac adigu barnaamijkan ayaan idinkula wadaagi doonaa sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay maxaa ka soconaya magaalada Garowe ee gobolka Nugaal maxaa ka jira wararka sheegaya in xubnaha mucaaradka Puntland loo qabtay inay isaga baxaan magaalada Garowe muddo ku siman 48 saacadood waan idin wadaagi doonaa soo dhawaad saaxiibayaal warbixinadaas iyo kuwa kale oo xasaasi ah ayaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaki aan ku bilaawno wararkeena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud afka ayuu furtay waxa uu weerar dhinacyo badan oo ku qaaday mucaaradka iyo maamulada ka soo horjeeda dawladdiisa arrimaha ku aadan doorashooyinka amniga magaalada Muqdisho iyo dhinacyo kale ayuu ka hadlay galka Somaliland waa uu soo hadal qaaday haddaba khudbadda madaxweynaha Soomaaliya oo dhinacyo badan taabanayso iyo arrimihii uu ka hadlay iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihiisa Xamza Cabdi Barre oo isaguna u jawaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni kaasi oo sheegay in la soo adeegsaday oo uu yahay nin ku hadlayo war uu soo dhiibay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qaybta dambe idin kula wadaagi doonaa xaaladda Garowe maanta way degan tahay wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu ka fakarayo in xubnaha mucaaradka ee Garowe ku sugan inuu halkaasi ka eriyo waxaana arintaasi gacan ka siinayo salaadiinta dhaqanka ee Puntland waxa uu ku shabadeenaya inay yihiin kuwa u taagan duminta Puntland marka magaalada Garowe kulamo kala duwan oo siyaasadeed ayaa ka soconayo iyada oo wili aysan xabad dhicin waxa qorshe uu yahay in si nabada xubnaha mucaaradka looga soo diro magaalada Garowe isla markaasina Muqdisho iyo halkii ay ka yimaadeen ay dib ugu laabtaan si Garowe uusan ama aysan xabad uga dhicin sidoo kale magaalada waxa ku sugan ciidamada daacad u ah taliyaha qaybta koonfurta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Jamcaal Taakar wixii ku soo kordhasay macluumaadyadan xiga ayaa kaga bogan doonta waxaan rabaa in idin la wadaago madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa oo si isku mid ah buudka kula tuntay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo xoogga mucaarad dadkeeni dad siyaasiyiin ayaa waxay ku kala xarxareysteen xerooyin yar yar ayuu ninba in meel ku xareystay qool buu la hortaagan yahay in dadku isu tagaan ma ogola in la isu yimaado ma ogola meeshaasuu dadka ku ciqaabaya qofkii yidhaahdo war dadka isu fur oo dadka daan ah qofkaas wuu waalan yahay hal tusaale baan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan weydiiyo meesha ay marayso madax ku socoshadu iyo xaqiiqada sida looga fogeeyay wiilka askariga ee Soomaaliyeed ee asagoo boosaaso jooga ka soo lugayay boosaaso qorigiisa soo qaatay saxiidiisa dhabarka soo saartay bakadiisa iyo wixii uga soo baxa biilka laga siinayay halkaas ka soo lugayay jawhar ku yimid lug asagoo qaran Soomaaliyeed raadinaya oo haddana jawhar ka lugayay baydhabo tagay oo baydhabo ka soo lugayay xamar yimid ee meeshan aan caawa fadhino oo ay 1991 dawlad fadhido ugu dambeysay dawladnimadan hadda caawa u fadhina salka u dhigay markii ugu horeysay ee halkan asagoo dawladnimada difaacaya saaxiibadii ugu baabeen oo kuwa aan 1002 ka yarayn ay aagan ay ku wada aasan yihiin oo saaxiibadiisa oo laga yaabo inuu asagu ku dhaawacmay oo lug go'an yahay ama gacan go'an yahay ama illa yahay
من با انتو ويلكي مالكو حريست ayaa waxaa dambi noqday dawladdii uu halkaa u maray ee uu dhistay dhidibada u aasay inay xuquuq siiso oy mushaar siiso oy darajiyo dalacsiin siiso waxay noqotay dambi bal ilaahay yaa idinku dhaariyey wiilkaa dulmiga haysta fiiriya yaa wiilka iyo ninka qoolka la hortaaganee guriga ku xidhay yaa u garqaaday maxaa dawlad waayo intaasoo dhan u samaynayay muxuu u dhimanayay muxuu dalkan muxuu waxaasoo dhan u soo marayay muxuu dawladdan u samaystay maxaa ka dhigay dawladdiisii inay mushahar siiso war adigu haddaad mushahar siin weyday oo dawladdiisii mushahar siisay oo darajiyo dalacsiin siisay maxaa dambiilo ka dhigay maxaa kii siiyey dambiilo ka dhigay maxaa lacagta la siiyey xaaraan ka dhigay waxay ku tusinaysaa caqligaasi waa caqli madaxa ku socda laguna kor taagan yihiin waxaan leeyahay wiilkaas annagaa matala dawladdu halka keenayna maanta annagaa madax ka ah waajib waxaa nagu ah xuquuqdiisa inaan siino ama diid ama yeel kun baad ka hadli labaad ka hadli 10 kun 20 kun 30 kun baan qoraynaa waana siinaynaa xuquuqdooda isdilaaca adigu meesha hartayeen meesha hartay waa cadaalad xumo waa cadaalad xumo madaxdii naga horreysay ee dawladdan ka horreysay ama ayaga ha loo diido ama ayagu ha iska daayaane inay wiilashaa xuquuqdooda siin waayaan in ay wiilashaasi ku dambeeyaan min askari qaran oo calankii Soomaaliya dib Soomaaliya dib ugu soo celiyay ilaa qof min maleeshi ah oo nin meel ku ilaalinayo guri ugu xiran halkaa inuu ku dambeeyo in loo ogolaado oo laga dhageysto oo laga aqbalo waa cadaalad xumo wiilkaas waa cadaalad samayn gabadhaasna waa cadaalad samayn haddii la diiday boqolaal wiil iyo gabdho dhalinyaro oo budgetkoodii la sameeyo macallimiin noqon lahaa dadkooda bari lahaa haddii la diiday haddii mashaariicdii la diiday oo ay kow ka tahay wadada jidka laamiga ee xarfo iyo gaalkacyo oo cid kasta laga diiday maantana waxay maraysaa wiilkii askari ahaa ee xuquuqdiisa la siiyey xuquuqda in la siiyaa waa dambi bay maraysaa markaan aan ku celinayaa hadday kuwii nin shaacir oo carabi ah caraba ayaa wuxuu yidhi wa innii وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يأتي به الأوائل إن كستوه يعرفوا إلانيه وأنا واي هرجوجين لكن وحالا إمد وحانا كوي هركينين أنا وحالا ويلك أنا متلا وحانا كان يسي وحي كوي هرسي وعين مركا قل موتوا بغيظكم هل إيا لبدا نغسل يوم ما شرطان كبعا والله السينة يا صدح أسكي هبيت دلكان كسو بيرتو وقرن مid ka mida ugu yaraan meeshaas ka imaan doona hadii ilaahay horaa dib loo sameeyo dawlad dambara yeelmeen mara aqbalayna in loo sameeyo dadkaas intaas waa fariin ay ila tahay in ay dhig u yeeshaan oo ay maqlaan dadka siyaasiyiinta ee raba inay dadkan Soomaaliyeed midba meel ku xareysto Soomaali dhalinyaradeedu way diiday in meel lagu kala xareeyo waana hambalyeynaya dhalinyarada meel kasta joogta ee runtii wax fahamtay ee arintaas
taagan ee baraarugtay ee aan ogolayn in la kala kaxeeyo aad iyo aad baan u mahadcelinayaa. waxaan leeyahay ugu dambaystii oo aan Soomaali oo dhan leeyahay dardaaran gabaygii dheeraaye dardaaran waxaa waaye aan kula dardaarmay kala garadantaadiyo halka dabinku kaa xigo intaasaan leeyahay. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dowlad goboleedka Puntland ilaa iyo 700-800 oo macallin oo dugsiyada hoose dhexe inay macallimiin ka noqdaan loogu talagalay maamulka joogaa diiday in maxaan ku iraadaye la qoro oo laga qoro deegaankaas maaha laga qoro deegaankaas in machad macallimiinta lagu tababaro laga dhisa meesha oo macallimiintaas inta lagu tababaro dugsiyada ku yaala deegaankaas oo dhan ay macallimiin ka noqdaan maamulka maanta jooga iyo hoggaankiisa diiday ma sii qari karo. dowlad goboleedyada kale oo dhan macaahidii tababarka macallimiinta waa ka furan yahay macallimiintii waa la qoray waa ka joogaan budgetka dowladda federaalka ay ku jiraan dowladda federaalka mishaar siisa manhajkii dowladda federaalka ay samaysay oo laga wada qayb galay ayay dhigaan oo iskuulaadka laga dhigaa macallimiintana lagu tababaray. shahaado midaysan ayaa dalka Soomaaliya markii ugu horeysay intiisa badan ka dhaqan gashay oo caalamka oo dhan oo kula macaamilaa. waa midda maalmo dhaweeto magaalada Muqdisho xafladaha looga dhigayo dowlad goboleedyada iyo deegaanada dhan xafladaha ardada qalin jibinaysa imtixaanka u dambeeyay gashay ay dugsiga fasalka 8aad iyo fasalka maxaan ku raraa 12aad. hadda ka hor maalinaan ka hadlaan erey isgoysida xamaran soo istaagay arday meel u socdaan waay waxaan taaramkii hore madaxweyne ahay imtixaanka dowladda ma gelayna iyadoo la leeyahay oo la diidan yahay dadka gelayana kun qofood in ka yar iyo wax lamida iyo ay yihiin oo aan leenahay war imtixaanka dowladda gala oo shahaado midaysan qaata oo qaarkood ay diideen ay yiraahdeen ma gelayno. maantana 50,000 oo arday ayaa inta gashay yaa ka xafladaynaysa dalka oo dhan. dowladnimadu waa sidaas waa bulkeeti la dul saaray oo dhismaya. ninkii hor istaagaahay bulkeeti la saari lahaay ayuu diiday in la saaro oo derbigaas uu dhismo. xumaan ma qabno dalkeenna iyo dadkeenna ma kala jeclin nooma kala sokeeyaan waa u dhaaranay waana u taagannahay in la kala qoqobo ma ogolin. maalin dhaweetaan iri haddana waa ku celinayaa waxa la federaaleeyey waa nidaamka iyo adeega dadka loo adeegayo ee shacabka Soomaaliyeed lama federaaleyn. shacabka Soomaaliyeed ma kala qoqobmi karo mana kala qoys iyo qayb ma kala noqon karo waa mid. laakiin nidaamka federaalka waxaa loo keenay si adeega dadka loogu dhaweeyo kow tan labaad si ay wakiilo ugu yeeshaan talada dalka meesha ay ka go'do. wakiiladii ay u yeesheen ee dalka dacaladiisa kala duwan oo dhan ay ka soo wakiisheen oo halkan la keenana markii ay taliyeen taladoodii ma rabnaa haddana qola xaggaas nin xaggaa ka yiri mid kalena xaggaa ka yiri. waa kuwii weliba shala ayagu ay keeneen ay soo qoreen inta qol isku xireen ayagu ay soo qoreen waay oo ay dhahan adikaana matalaysiin dadkaan intiisa kale kuma kalsoon adikaana ku kalsoon ayagii waay maanta waxa ay leeyihiin waxba kama jiraan wax lama samayn karo soo noqda ka soo baxa ma ogolin waa qaadacnay. dowladnimadu sidaa uma shaqayso. si gaar ah walaalaha Soomaaliyeed ee deegaankaas hadda la sarbeebay ee Puntland ma sarbeebay anigu waa sheegayaa ku nool. waxaan rabaa ayaguna waa og yihiin annaguna waa ognahay allana waa og yahay in hoggaanka meeshaasi joogaahay oo maamulkaas deegaankaas ka jira ee dowladda ah ee dowlad goboleedka ah
uu ka gooyey soomaaliya dhinac walba afka marka laga reebo dalka soomaaliya ka midna jamhuuriyaddan ka midna in la yidhaah maanta la joogaahe maamulka puntland iyo dowladda federaalka wax ka dhexeeya ma jiraan wax walba waa la jaray waa la joojiyey communication kama dhexeeyo wada shaqayn kama dhexayso wasaaraduhu ma wada shaqeeyaan halka dalka intiisa kaloo dhan wasaaradaha joogaahe ay wada shaqeeyaan reer puntland hogaanka puntland ka jiro wuxuu xamar dad usoo diraa iyo dowladda federaalka siyaasadda markii laga hadlaayo war ninka kalluumaysanaya ee xeebta geeskaa jira iyo midka geela ku ilaashanaya dooxada halkaa ku taalla inta ka dhexaysahay maxaa siyaasadda muxuu ahay ayagu ka galay dadayba u wakiisheen u dirsadeen waa nasiib daro waxaa kaloon rabaa inaan caawa halkan ka sheego maalmo dhoweeto dhan waxaad maqlaya miidiya iyadoo laga leeyahay xamaraa dad laga soo dirayo fitna laga kicinayaa maxaanku idhaha deegaanka puntland dadkii reer puntlandaa la rabaa iyo deegaankoodii degaan in la kiciyo waa been wax ka jira ma jiraan wiilasha meeshaas joogaahay 8 bilood 9 bilood qaarkood 7 bilood iyay mishaar qaataan 8 bilood fidna ma ayan kicinin maxaa hadda loo leeyahay fidnay kicinayaan qaarkoodna 6 bilood iyo 7 bilood ay joogaan oo shaqo ay ka tirsanaa ciidanka dowladda ay register ah ay number lahaayeen oo bil kasta mishaarku u dhacayay fitna ma ka abuurin weligood meel ay isbaaro dhigteen iyo meel ay jid ay xireen iyo cid ay maxaanku ihahdaa dulmiyeen ma jirin maanta maxaa marka gurbaanka colaadda iyo balaaya kici rabaan iyo xamar magaalada muqdisho iyo caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wanaagga ummadda soomaaliyeeda looga shaqeeyaa iyo difaaca danaha ummadda soomaaliyeeda looga shaqeeyaa kala geysmo ummadda soomaaliyeed iyo kala dhantaalid loogama shaqeeya adeer adiga muraadkaaga haddaad meel un si aad u rabta aad u weyday de si aad u heli kartaa jirta sina looma waayi kara raadso haddaad dood qabto miiska soo saar imaw inaan kula doodnaan diyaar u nahay inaan kuu nimaado meeshaada kuugu nimaadaan diyaar u nahay haddaad noo timid intana waa ku soo dhoweyna waa ku sharafnay welina diyaaraan kuu nahay inaan ku dhegaysano kula doodno waxaan rabaa nimankaa siyaasiyiinta ah ma sheegaya ninkaa odaga ahee saciid cabdullaahi deni keligiis maba haystaba dadka mucaaradka magaciisa sito oo dhan magaca ilaahan idinku dhaariya xaggee ku aragteen ayagoo soo bandhiga oo leh soomaaliya qurux badan oo sidaan ahaan rabnaa wanaaggan iyo quruxdaanaan dadka soomaaliyeed u rabnaa waa diidnay roog waaye waa la dumayaa waa la kala tegayaa maxaanku rahdaa cirka xagga ka soo dumaya balaaya inta ka soo butaacaysa waxaan ahayn yaa ku haya annaguna waxaan leenahay muwaadinka soomaaliyeed waxa uu mudan yahay oo ummadaha adduunkao dhan ay haystaan ha helo ummadaha adduunka ku nool xuquuqda ay dalkooda ku leeyihiin oo kale ha ku yeesha dalkan wixii aan rabnay oo dhan ma haysanaa maya wax kasta meeshii ugu fiicneed ma noo joogaan maya meeshaan shalay joognay aan ka fiicannahay laakiin meeshii shalay aan joognay yaan ka fiicannahay meeshaan u soconnaana meesha maanta aan joogna ayay ka sii fiican tahay waa buluketigaas buluketi la dul saaraya hadda aan ka hadlayay dadka soomaaliyeedoo walaalayaal indhihiina kor u qaada waxaa la yidhahaa waalida calaamooyinka waalida waxaa ka mid ah wixii aan shalay samaynaayey oon daraad samaynaayey inaan sameeyo oo wixii aan ka heli jirayna aanan rabina wax ka duwan inaan ka hela aan rabo shalay waxaad samayn jirta maanta haddaad samaysid waxaa shalay ka heshun baad ka heli wax cusub ka heli maysid wax cusub saad u heshaahe waxaad shalay samaynaysa wax ka duwan waa inaad samaysaa siyaasadda soomaaliya sidii shalay loo maamulayo si ka duwan in loo maamulaan rabnaa siyaasadda in la nidaamiyaan rabnaa oo hay-ada la yaqaano magac laho hadaf laho ujeedooyin laho la daalacan karo dadku inta fiiriyaan kan xisbigan kanaa ka roon ay dhihi karaanaan rabnaa hogaamiye kooxeedyo siyaasadeed waa ka soo noognay nin keligiis aniga
dhahayo meel taagan ummadda soomaaliyeed 36 sano waqti yar ma aha siyaasadeenna waa qofaysneed anigay ahayd maanta waa ka nimiday waxaan rabnaa siyaasaddu in ay tandiim nidaam inay leedahay xisbiye waaye nidaamka ay leedahay qof walba waxa uu daneeyo oo uu ka shaqeeyo oo uu rabo meesha ay yaallaan uu aadaa haddaad xirfad la tahay xirfadaadu meeshay jirtaad aaday haddaad siyaasi tahayna siyaasaddu meeshay jirtaad aaday siyaasadduna xisbiyey jirtaa ururka dhaqaatiirta iyo ururka injineerada iyo ururka beeraleyda iyo iskaashatada kalluumaysiga siyaasaddu ma jirto sida reer hebele qurac dheero degan siyaasadda aanay u jirin ma jirto reer hebel siyaasad ma jirto reer hebel wax kaloo badanay leeyihiin waa kee yaa ii sheegi kara qabiilka reer hebel la yidhaah ee meel inta ku shiray siyaasad qaran siyaasadda qaranka soomaaliya oo dhan go-aan ka soo gaaray ee maanta taagnaan dhihi karo annagoo reer hebel ohoo midaysan wiil iyo gabar bah iyo boqor saan u leenahay waxaan rabnaa soomaaliya noocaas u eg siyaasaddu halkaa inay martaan rabnaa aragtidaasaan leenahay hadafkaasaan leenahay mabaadidaasaan leenahay qabiilka yidhi maalin maalmaha ka mida waa kee qabiil siyaasad ma yeelan karo siyaasadda qarankaa lagu maamulaa qabiilkuna degaankiisa u maamulaa xeerarow u leeyahay degaankiisa uu ku maamulo qarniga 21aad iyo 36 sano oo dowladdii burburkii dowladnimada kadib dhallinyarada soomaaliyeeday maanta in yaa reer hebelehey iyo reer hebelaan nahay gurbaan lagugu tumo gabdhaha soomaaliyeedow in gurbaan la idinkugu tumo hebelaan nahay iyo reer hebelaan nahay wiilashiinuna ay qaranka u dhintaan raggiina odayaashiinu ay qaranka u dhintaan ninna xagga inta idiin soo istaago uu idin yidhaahdo reer hebel haddaan nahay ee aada u dheg raaricisaan meeshaas waxbaa ku qaldan siyaasadda qaranka go-aaminta masiirka ummadeed qabiil ma go-aami karo koox gaarana ma go-aami karto dadka soomaaliyeed oo dhan ciday wakiishaan ayaa go-aami karta dadka soomaaliyeedna hay-ado dowladeedu samaystay baarlamaan 2 aqal ah uu samaystay xukuumadou dhistay maxaan ku rahay hay-ada ka soo haro dhan uu sameeyey dowladda federaalka waxaa kaloo rabaa inaan sheego yaa ka maqan waa kuma qabiilka maanta inta meel istaago dhihi kara annagu matalaadda siyaasadeed ee dalka waa ka maqannahay matalaadda siyaasadeed ee dalka waa ka maqannahay yaa dhihi kara ma jirto la soo heli maayo siyaasaddana masiirka ummadda meesha laga go-aamiye waayo haddii meeshii masiirka laga go-aaminaya aada joogto waxa soo hara amuurahaaga hoose waaye amuurahaaga hoosena adigu u tasho lagu yiri ee go-aankeeda gaar midda kore ee dadka oo dhan ka dhaxaysana ciddii kaaga qaybgeli lahayd oo go-aanka wax kaaga gaari lahayd keenso lagu yiri ood keensatay sidii hore lagu keeni jiray haddii aan raalli laga ahayn sida saxdaa adduunyadu ay isku wakiilato oo ay ku dirsato dadkeeda go-aanka iyo masiirka u gaarayo ayaan rabnaa fanaaniintii halkaan caawa soo istaagay abwaaniintii halkaan dooro oo wax dooro ama ha lagu doorto dadka soomaaliyeed waa ku celcelinaynaa ka caajisi mayno mustawo kasta iyo meel kasta iyo heer kasta ay joogaan qof aanay dooranin ma xukumaayo tala u gaari maayo qof aanay rabitaankooda ayagoo keligood ahoo qol yar ilaahay uu labeeyo uu arko inta u calaameeyey cali iyo jaamac iyo caashe iyo maryanaan wakiishay intaad ku tiri halkaa aad ku riday kaasaa ku maamulayo kaasaa wax kuu gaaraya adaana u wakiilatay inuu kuu gaaro adaa siisa codkaaga adaa siisa kalsoonidaada laakiin maya anaa garanayo qofka kuu roon adigu ma garatid qofka kuu roone anaa garanaye
anaa maxaan ku ihahdaye xagga u dira calasow qarniga 21aad intay joognaa 58 sano ka horaa doorasho noogu dambeysay haddaan bilaabaynaa waa dooranaynaa waxaan ka hadlayaa shacabka meel kasta uu joogo oo la gaari karo in loo gaaro oo wax doortaan rabnaa siyaasadda dowladda maanta waa midaas muhiimadda ugu weyn ee maanta dalka ka jirta marka dagaalka argagixisada laga yimaadana waa midaas dooro ama ha lagu doorto waxaana soo martay dadka hadda la beerlaxawsanayo magaca qabiilka lagu beerlaxawsanayo dad dhan oo soomaaliyeed oo qabiil oo reer hebel iyo reer hebel reer oon hal iyo laba iyo saddex iyo aan ahayn waxna ma dooranaysid mana lagu dooranayo in la yiri reer hebel ma tihin haa ladi dooro maa waa yahay kuwana masala walba aan doorano mana dooranaysiin maxaa rabitaanka iyo cadaaladda iyo qofnimada qofka soomaaliya ay karaamadiisa meeshaas waxa ugu dhiman maxay yihiin warkan ma rabna warkan waa kii qaab darnay waa kii xumaay war naga daaya maya asaa idin matalaya in la yidhaaho loo soo diro warkan hurdada kama soo kaco war naga daaya warkan xalaasha iyo xaaraanta uma kala saarna war naga daaya maya asigaa annagaa garana anaa rabo waa anaa diray meeshuu idii tegaya meeshaasaan rabnaa dadka inaan ka keenno oo aan keenno dadku qof walba qofka uu inta dhegaystay fikirkiisa siyaasiga ah iyo fikirkiisa hogaamineed uu ku qancay inuu doorto oo fursad uu siiyo hadduu ku xumaado berri uu iska bedeli karo berri war adiga waa ku soo doortay teera baan ku siiyey niyow indhaha laguma kala qaadina naga leexa adiga muxuu ahay waana ceebaysay ama degaankeenna iyo dalkeenna codkayna waa gey weyday meeshii soomaali ay muxuu isugu geysanaysa taladee na dhaaf la dhigi kara berri dadka soomaaliyeed waxaan rabaa shalay wixii la idiin sheegi jiray ood yeeli jirteen haddii aada yeeshaan wixii aad heli jirteen ubaad ka helaysaan wixii aad heli jirteenna waa idin anfici waayeen soomaaliyey dadkaanu adduunyada waa u caqli badannahay oo waa mugaa ganacsi la aado waa u orod badannahay oo mugaa xoola hala tacba la yidhaha waa ka magaciisaysannahay oo marka hala cibaadaysto alla hala caabudo la yidhaha xataa adduunyada waa ka tilmaamanahay aan dowladowna mugaan dhahno maxaan adduunyada uga tilmaanaa laanahay ayadoo 66 sano ka hor waktigaas aan xusayna meeshaa ku yaalla aabbayaasheenii hore iyo awooyaasheenii magaca ah dimuqraadiyiintii ugu horreeyey afrika magaca ah ay qaateen 60kii waxaa la yidhaha waa sanadkii afrika 17 dowlad ma 18 dowlad oo afrika ah ayaa xurriyad qaatay sanadkii afrika la dhahaa wadamadii sanadkaas xurriyadda qaatay wadankii ugu horreeyey ee madaxweyne la doortay uu yimiday markii dambena inta la dooran waaye uu xafiiska ka tegay asoo nabada soomaaliya waaye dimuqraadiyiintii afrikaana la yidhaha 66 sano ka bacdi wax ma dooran kartid in marka qof jidka la soo istaago oo aan ka aqbalno suurtagal maaha dowladda federaalka soomaaliya waxay rabtaa dadka soomaaliyeed waxa ay mudan yihiin inay helaan oo keyrkood adduunyada uu ku haysto ma aha wax ay keligooda keyrkooda adduunka ku haysto aan waxba dheerayn oon waxba dhaamin lama gaarin lama dhicin meeqaan soo lahayn lama gaarin weli waaye waa jamhuuriyadda saddexaad markii la aasaasayay ee magaalada carta la isugu tegey 2000 war maxaan ku qaybsanaa wax mitir ma qabno inta fiiri reer hebel war maxaan wax ku qaybsanaa reer hebelka lafteeda waxna loogu qaybiyo 2 sano muddo 2 sano ah yaa la yiri muxuu ahaay sanadkii 26aad yaan xambaarsannahay horta 4.5 markaasaan waxaan hadda weli leenahay war sanadkan kama bixi karnay bal horta aasaas wixii aan
بريشكي بونددي أن أو جود بلهن أو بحلن أن دسنو سي أن أو بحنو محن كورا هذا سنة كدب ما له تنمنا ضيارة دستور كمل